barnaamij ballaaran ee maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle oo lagaga soo horjeeday madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khaliif Galeed iyo hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirka amniga ee maamulka Khaatumo Kaasi Cabdi Yuusuf. barnaamijkan ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayagoona iskugu yimid barxadda weyn oo ka dhisan yahay taalada beebeega ee magaalada Buuhoodle. barnaamijkan ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada difaaca ee magaalada Buuhoodle iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan badbaado Khaatumo. ugu horeyntiina waxa halka ka hadlay wasiirka hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal. dadkii arrintaa geystay inaynan ka hadhin aynu maxkamada caalamiga iyo teena haddaynu la helno aynu soo taagayno. marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin shirweynahan aynu arrintaa ku qaabilaynay aad ka soo qayb gasheen. marka koowaad waxaanu rabnaa taaladan inay noqoto taalo lagu xusto halgamayaasheenii. ninka halgamaha waxaa la yidhi lama ilaawo halgankiisa ilaa la ilaawo. haddaynan ilaawin magaaladaennii iyo odayadeennii. sidoo kale waxaa iyaguna halkaa ka hadlay qaar ka mid ah oqaasha magaalada Buuhoodle iyo waliba sidoo kale saraakiisha ciidamada ee magaalada Buuhoodle. waxaanu soo dhawaynaynaa cidii nabadda diidan inay colaad qaadato. afku doolaba ha ku hadlo, hadduu dhulbahanta yahay, hadduu waqooyi ka hadlayo. cidda dagaal doonaysa waa soo dhawaynaynaa hadday nabad qaadan weydo. ninkii habeen hore ballicad ka hadlayey ee aan ilmaadeerka nahay wuxuu fayiyey rag qoys ah oo aan qoysas badan ahayn buu dilaysuu Soomaaliland ka soo qaaday u geliyey. wuxuu yidhi waxaanu midaynay heshiiska iyagii arda sababe ee Soomaaliland iyo Khaatumo ee ahaa ciddii naga hor timaada in lala dagaalamo ciidamadii Soomaaliland iyo ciidanka Khaatumo waan diyaarinay buu yidhi. waxaanan aqbalayn buu wax shiro lagu qabta Buuhoodle. waxaanan aqbalayn cid tashata. waxaan leenahay waxba kale la isku fogaan maaye urur waa Buuhoodle, balacad waa Buuhoodle, geedeer waa Buuhoodle, balhadac waa Buuhoodle. ninka laga sheeganaya hadduu baqo nasiibkii waa tagayna haddii Allahay wallahi hadda naftana laga qaadin waa tagayna haddii Allahay ma ku tala galo. ragii lahaa iyo kuwii dhalay iyo 10 kun oo ilaa maalintii kacibaa jooga ma soo gelin kartid food adiga iyo waxaad wadato midna ma iman karo. waxaa yimid Cali Khaliifow maalintii lagu doortay ayaa la yidhi Khaatumo iyo khiyaana kala jira. waan maqli waayay anigu dadkii kugu daba haraaday baan ku jiray. maalintaa tiri saaxiibkay Silaanyo yaan anigu ka go'aan qaato. Cali Khaliifow waad nashir qooshay oo waad naxayaamaysa. laakiin waa aanada tayba dabadood la qabay xaaladayadu. Cali Khaliif oo wada gariiraya cadifadayda dhan baa kacsan. ragga iga dambeeya ninna u garanaya cadifadayda dhan baa kacsan. Cali Khaliif aaminaa damba ma jirto. hadal yaroo la isu sheegaya ma jiro. hoosu hadal ma jiro. markaan jiif caaqilkii ay waxaan sheedinayaa war uu yahay marka hore soor iyo sanaag iyo cayn dad isku midaa jooga. haddii la yidhi waxbaa ka qaybsan iminka wax qaybsani ma jiraan. saddexdaa gobolee dhulbahanta joogo iyo wixii raaci kara oo warsageliya oo laasqoraya intaasi waa wada soconnaa. weligeen laynama gumaysan iminkana layna gumaysan maayo. caloosha aad u geliya iyagana waxaanu uga digaynaa haddaad dagaal ka maarmi weydaan soo dhowaada. dagaal haddaa ka maarmi weydaan soo dhowaada. iyagana intaas Cali Khaliif maalintuu aqalka fuulayaan waryaab tegi kara ee looga baxay aqalka waa ku khasaaray. barnaamijkan ka dhacay magaalada Buuhoodle ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay ka jiraan siyaasado kala gedisan.